daawade kusoo dhawo channelkeena sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha subscribe saar channelkeena gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya oo hela muuqaaladan cusub. Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta ciyaaraha. Qodobada barnaamijkeena maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah hordhacan idinka hayna kulanka Levante iyo Barcelona, hordhacan idinka hayna kulanka weyn ee Tottenham iyo Manchester City, hordhacan idinka hayna kulanka Burnley iyo waliba kooxda kubadda cagta Arsenal. Manchester City oo go'aanka kama dambaysa ka gaartay mustaqbalka Leroy Sané maxaa soo kordhay Kylian Mbappe oo u dabaaldegay guusha xalinta Real Madrid ka gaartay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid maxaa cusub Ryan Giggs oo ka shifay halka uu ku xun yahay saxiixa cusub ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United Bruno Fernandes. Liverpool oo Premier League ka diiwaan gashatay record aanay abid laga horay looga dhigin horyaalka dalkaasi iyo Ingiriiska. Liverpool oo boorka ka jaftay record ay Premier League iyada ka dhigtay 48 sano ka hor. Mohamed Salah oo dhaafay record Luis Alberto Suarez ka dhigay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Isla wararka Liverpool oo waayi karta daaficida birta ah ee Virgil van Dijk iyo Prince Mohammed bin Salman oo markale soo celiyay doonitaankiisa ku aadan kooxda Manchester United iyo inuu iibsado. Qodobadaas iyo qodobo kale ay kamid yihiin kulamada la dheelaya ayaad ku maqli doontaa. oo anigoo Dalmar Cabdidiiriye ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena ciyaaraha. aynu ku hormarnay kulamada la dheeli doono. Burnley ayaa soo dhaweynaysa kooxda Arsenal 5 galabnimo halka Tottenham halka saac iyo bar. Manchester City ay soo dhaweyn doonto horyaalka Premier League liigaha dalkaasi Spain. Legends iyo Real Sociedad ayaa wada dheelaya 8 iyo qadar 30 daqiiqo halka Eibar iyo waliba kooxda 8 duhurnimo ay kulankaas la dheelaya halka Eibar iyo Real Betis 4 galabnimo ay kulan xiiso la wada qaadan doonaan. Atletico Bilbao iyo Getafe kulan xiiso leh. Villarreal iyo Osasuna way balansan yihiin. Sevilla iyo Alaves kulanka ugu xiisaha badan dalkaasi Spain. Barcelona Levante ayay soo dhaweynaysaa. Serie A dalkaasi Talyaaniga iyo Juventus iyo Fiorentina ayaa balansan 8 qadar 30 daqiiqo halka Lazio Spal ay kulan xiiso leh wada qaadan doonaan 5 galabnimo. Atalanta iyo Genoa 5 galabnimo. Milan iyo Hellas Verona 5 galabnimo halka Lecce iyo Turin 8 fiidnimo caawa ay wada la daawan doono. Udinese iyo waliba kooxda kubadda cagta Inter Milan 4 saac qadar 45 daqiiqo ayaa la daawan doonaa. Bundesliga Cologne iyo Freiburg ayaa wada balansan. Brighton iyo waliba Wolfsburg Brighton iyo waliba Wolfsburg kulan xiiso leh ay wada qaadan doonaan. Liga 1 dalkaasi Faransiiska Nice iyo Lyon way wada balansan yihiin halka Metz Saint-Étienne isna kulan xiiso leh ay wada qaadan doonaan. Olympique Marseille waxay u safraysaa kooxda kubadda cagta Brighton 5 saac oo fiidnimo caawa. aynu fiirino hordhacyada kulamada ugu xiisaha badan. Kooxda Barcelona ayaa martigelin doonta kooxda Levante kulan ka tirsan toddobaadkii 22aad ee horyaalka liigaha kulan ka dhici doona garoonka Camp Nou. Barcelona ayaa kulanka soo galaysa iyadoo isha ku haysa inay ku soo laabato wadada guulaha kadib guuldarada ay kala kulantay kooxda Valencia. Dhanka kale Levante ayaa kulanka soo galaysa iyadoo guuldaro kala kulantay kooxda Osasuna toddobaadkii hore waxayna doonaysaa inay Barcelona caawa ka yaabsato. Barcelona iyo Levante ay kulankan u dhaxeeya 5 saac oo fiidnimo caawa ayaa la daawan doonaa. xaqiiqooyinka kulankan haddii aynu fiirino Barcelona ayaa badisay dhammaan 13 kulan ee la liigaha. Levante la ciyaartay garoonkeeda Camp Nou kaliya kooxda Granada ayaa ay score kaga fiican halkaasi ku haysata kadib markii ay 3-1 kaga badisay Barcelona kulankii hore. Levante ayaa isha ku haysa inay noqoto kooxdii ugu horeysay ee Barcelona 2 kulan bisha horyaalka
xilli ciyaareedkan ka badisa tan iyo 2007 markaas Real Madrid iyo Villarreal ay sidaas sameeyeen. Barcelona ayaa la kulantay 4 guul daro xilli ciyaareedkan waana intii ugu badneed ee xilli ciyaareedkan kaliya horyaalka tan iyo 2003-2004. Levante ayaa guul daro la kulantay 3 kulan ee ugu dambeysay horyaalka La Ligaha, laakiin 4 kulan oo xiriira guul daro lama aysan kulmin tan iyo February 2018 kooxda Levante. Horyaalka dalkaas iyo Ingiriiska kulan ugu xiisaha badan toddobaadka Premier League ayaa dhex mari doona kooxaha Tottenham iyo Manchester City kulan ka tirsan toddobaadkii 25aad ee horyaalka Premier League. Kooxda Tottenham ayaa kulankan soo galaysa iyadoo toddobaadkii hore guul ka soo gaartay kooxda Norwich City, sidoo kale ishu ku haysa inay kaalmaha sare ee horyaalka kala sareyntiisa ay u durugto. Dhanka kale kooxda Manchester City ayaa kulankan soo galaysa iyadoo guul ka soo gaartay kooxda Sheffield United, doonaysana si adkaysato kaalinta labaad ee kala sareynta Premier League. Tottenham iyo Manchester City ay kulankan u dhaxeeya Premier League ka tirsan yahay hal saac iyo qadar 30 daqiiqo ayaa la daawan doonaa. Xaqiiqooyinka kulankani haddii aynu fiirino, kooxda Tottenham ayaa guul la'aan 6 kulan ugu dambeysay oo ay la ciyaartay kooxda Manchester City tan iyo markii 2-0 ay uga badisay bishii October 2016. tartamada oo dhan Manchester City ayaa guul daro la kulantay 3 kamid ah 5 kulan ugu dambeysay oo ay la ciyaartay Tottenham. Manchester City ayaa badisay 5 kulan ugu dambeysay oo booqatay magaalada London iyagoo garaacay kooxaha ka dhisan halkaas iyo Arsenal iyo waliba Tottenham. Tottenham ayaa guul daro la kulantay 2 kamid ah 6 kulan ugu dambeysay oo ay ku ciyaartay garoonkeeda intuu tababaro ahaa Jose Mourinho. natiijada ka soo baxda kulankaasi barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaa hadduu eebbe idmo. Kooxda Arsenal ayaa marti u noqon doonta kooxda Burnley kulan ka tirsan toddobaadkii 25aad ee horyaalka Premier League kana dhici doona garoonka Turf Room. Arsenal ayaa kulanka soo galaysa iyadoo barbaro la gashay kulankii ugu dambeeyay horyaalka Premier League, waliba go'aan ay ku gaartay inay kulankani ay guul ka keensato. Dhanka kale kooxda Burnley ayaa kulanka soo galaysa iyadoo soo garaacday kooxda Manchester United toddobaadkii hore horyaalka Premier League. Kulankani 5 galabnimo ayaa la daawan doonaa Turf Room. Kooxda kubadda cagta Burnley ayaa lagu dheeli doonaa. Burnley iyo Arsenal ayuuna u dhaxeeya. xaqiiqooyinka kulankan haddii aynu fiirino, Burnley ayaa laga badiyay 11 kulan ugu dambeysay oo ay ka hortagtay Arsenal tartamada oo dhan iyadoo guuldaradaasi bilaabatay 2010. Arsenal ayaa badisay 10 kulan oo ugu dambeeyay la ciyaartay kooxda Burnley. Markii ugu dambeysay Gunners 11 kulan oo xiriir ay badisana waxay ahayd 1994 ilaa 2004, waxaana ay kooxdaasi ahayd Manchester City inay ka badisay. Burnley ayaa wax kulan ah oo hogaanka u qabanin 11 kulan oo la ciyaartay kooxda Arsenal. Kooxda kaliya oo sidaas oo kale inta samaysayna waa Bournemouth, taasoo kooxda Chelsea intay la ciyaartay 14 kulan aanan hogaanka ciyaarta qabanin. Arsenal ayaa guul daro la kulmin 6 kulan ugu dambeysay Premier League ku ciyaarto meel ka baxsan garoonkeeda iyadoo barbaro gashay 4 kale. Arsenal ayaanan 5 kulan oo xiriirana banaanka barbardhac aanu ku soo galin weligeed. Haddii aynu intaasi kaga nimaano hordhacyada kulamadaasi, aynu aadna wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen kooxda Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay go'aansatay inay iska iibisay xidiga garabka uga ciyaara Leroy Sané marka la gaaro suuqan dhamaadka xilli ciyaareedkan, sida ay sheegayaan wararka. Wargeyska Mirror Sport ayaa sheegaya in City go'aansatay inay iska fasaxdo xidiga garabka ka ciyaara dhamaadka xilli ciyaareedkan kadib markii uu diiday inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Isla wargeyska ayaa sheegaya in Manchester City diyaar u tahay in 37 milyan ku iibiso xidigani reer Germany. Sané ayaa si weyn loola xiriirinayaa kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich xagaagii hore oo dhan, kaasoo doonayay inay ku xoojiyaan weerarkooda. Xidiga reer Germany ayaa xitaa kooxdiisa u sheegay inuu doonayo inuu isaga tago kuna biiro kooxda dalkiisa ka dhisan ee Bayern Munich. Xidiga weerarka uga ciyaara PSG Kylian Mbappe ayaa aad u dabaaldegay guushii ay Real Madrid ka gaartay kooxda Atletico Madrid kulan iyo gool ay u Karim Benzema uga adkaatay. Kooxda Real Madrid ayaa gaadhay guul muhiim ah oo ku hogaamiyay kooxda Real Madrid kulan ka tirsan horyaalka Premier League kana dhacay garoonka Santiago Bernabeu. Waxa aan qarsoonayn xiisaha Real Madrid iyo sanadiin sidaan u qabaan saxiixa xidiga reer France ee Kylian Mbappe, kuwaas oo doonayay saxiixa xidigani inay keenaan Santiago kadib markii uu Kylian Mbappe ka baxay isagoo cadhaysan kulankii ay kooxdiisa guusha weyn ka gaartay Montpellier. Xidiga reer France ayaa u dabaaldegay guusha Los Blancos ee ay kooxda kubadda cagta
cagta ee dariska yihiin ee Atletico ay la ciyaartay. Wargeyskaas ayaa sheegay in xidiga reference leeg saaray sawir baraha bulshada ah oo xidiga Real Madrid u dabaaldegay goolkii Karim Benzema u dhaliyay Los Blancos. Arrinkan ayaa calaamad kale ah in xidigan da'yarka ee reference doonayo inuu xirto maaliyadda kooxda kubadda cagta ee Los Blancos, taasoo haatanba uu sii cadaystay. Halyeega kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ryan Giggs ayaa qiimeeyay qaab ciyaareedka saxiixa cusub ee kooxda Manchester United Bruno Fernandes, kaasoo kulankiisii ugu horeeyay u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester United kulan ay barbar la gashay kooxda Wolverhampton Wanderers. Ryan Giggs ayaa ka shafay meesha uu ku xun yahay xidiga cusub ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee dhawaangalka ah Bruno Fernandes markii laga soo iibiyay bishan suuqani January. Fernandes ayaa ciyaaray 90 daqiiqo ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United ciyaartay kulankii Wolverhampton Wanderers isagoo lambarka 10aad ka ciyaarayay, laakiin Ryan Giggs ayaa durba muujiyay halka meel oo ku xun yahay xidigani Manchester United dhawaangalka ah ee Bruno Fernandes. Ryan Giggs oo amuurtaasi ka hadlay ayaa yiri uma malaynayo in lambarka 10aad yahay booska uu ku fiican yahay, sababtoo ah marka uu ka ciyaarayo booskaasi ma sameyn karo wax difaacasho ah, taasoo keenaysa in Ryan Giggs haatan bafaala ka bixiyay xidiga dhawaangalka ah kooxda kubadda cagta United ee Bruno Fernandes. kooxda Liverpool ayaa guul weyn ka gaartay kooxda Southampton kulan ka tirsan toddobaadkii 25aad ee horyaalka Premier League, iyadoo sii wadata guulaha Premier League. Kadib guushaasi Liverpool ayaa rikoor aanay horey loo dhigin taariikhda Premier League loo diiwaan geliyay, iyadoo sii wadata taariikhda ay xilli ciyaareedkan ka dhigayso horyaalka dalkaasi Ingiriiska. Kadib guushii Southampton, Reds ayaa maanta ku dhameysan doonta inay 22 dhibcood horyaalka ku hogaaminayso, iyadoo kaalinta labaad ee Manchester City kala sareynta horyaalka Premier League kaga hayso 22 dhibcood. Arrintan ayaa markii ugu horeysay ka dhacday taariikhda Premier League, maadaama ay horey arrinkaasi aysan u sameynin kooxnaba. Isla wararka Liverpool ayaynu ku jirnaa. Kooxda Liverpool ayaa gool ay u qalmeen ka gaartay kooxda Southampton kulan ka tirsan horyaalka Premier League kana dhacay garoonka Anfield Road. goolal ay kala dhaliyeen Mohamed Salah, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain ayaa Reds ka caawiyay inay gaadho guusheedii 24aad ee horyaalka Premier League. Kadib guushaasi kooxda Liverpool ayaa boorka ka jaftay rikoor ay Premier League ka dhigtay 48 sano ka hor bishii December 1972. rikoorkaas ayaa ah in Liverpool badisay mid kasta oo ka mid ah 20kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ku ciyaartay garoonka Anfield Road, waana rikoor aad u dheer oo taariikhda Premier League ee tartankani garoonkeeda ay ku dhigtay. kooxda kaliya sidaasi hore u sameysay ayaa ah isla kooxda Liverpool oo haatan mar labaad sameysay ilaa ay xagaagii 1972 ilaa iyo hadda. weli isla wararka Liverpool ayaynu ku jirnaa. xidiga kooxda Liverpool Mohamed Salah ayaa dhaafay rikoorkii goolasha ee Luis Alberto Suarez uu dhigay kooxda Reds kadib 2 gool ee uu dhaliyay kulankii Southampton horyaalka Premier League. Reds ayaa 4 gool ku garaacday Southampton kulan ka tirsan toddobaadkii 25aad ee horyaalka Premier League, iyadoo Mohamed Salah dhaliyay 2 gool oo kamid ah goolashaasi. kadib 2daasi gool Mohamed Salah ayaa dhaliyay goolkiisii 7aad ee horyaalka Premier League isagoo 68 gool u dhaliyay kooxda Liverpool, halka 2 goolna uu dhaliyay Chelsea. xidiga reemasar ee Mohamed Salah ayaa dhaafay xidigii hore Liverpool Luis Alberto, kaasoo Reds u dhaliyay 69 gool intii uu joogay Anfield. guud ahaan Mohamed Salah ayaa 70 gool u dhaliyay horyaalka Premier League ka dhaliyay 109 kulan oo uu ka ciyaaray, halka Luis Suarez uu 69 gool ku dhaliyay 110 gool oo uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Liverpool. isla wararka Liverpool ayaynu ku jirnaa. Liverpool ayaa wajahaysa dagaal ay ku doonayso inay ku sii haysato daafaceeda Virgil van Dijk dhamaadka xilli ciyaareedkan haddii ay Reds ku guuleysato horyaalka Premier League, sida ay sheegayaan wararka dasan. Reds ayaa haatan ku guuleysanaysa horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan uguna dhibcaha badan, weliba dhibco waali ah ayay haatan ku hogaaminaysa. Liverpool ayaa fursad u haysata koobkeedii afraad inay ku guuleysato muddo 12 bilood gudahooda, iyadoo haatan 22 dhibcood ku hogaaminaysa horyaalka. si kastaba ha ahaatee, guuleystaha horyaalka Liverpool ee Premier League ayaa dhibaato ku noqon karta wiilasha Jordan Klopp, maadaama uu waayi karaan mid kamid ah xidigaha ugu fiican kooxda Liverpool. wargeyska The Sun ayaa sheegaya in Virgil van Dijk isaga tagi doono kooxda Liverpool haddii uu ku hogaamiyo ku guuleysiga horyaalka. isla wargeyska ayaa sheegaya in Juventus tahay kooxda ugu cadcad haatanna diyaar la 150 milyan oo euro si ay ugu dalbato xidigan daafaca ka dheela uguna qaalisan kana dhigto xidigii ugu qaalisan
qaalisanaa adduunka ee daafaca iyo xidigii labaad ee taariikhda kubadda cagta ugu qaalisanaa. dhanka kale kooxaha reer Spain ee Real Madrid iyo Barcelona ayaa xiise waqti dheer u haya xidigani daafaca ku ciyaara ee reer Holland iyagoo doonaya inay Liverpool ka soo xayuubiyaan. dhaxal sugaha wadanka Sacuudi Arabia Mohammed bin Salman ayaa mar kale soo celiyay doonistiisa ku aadan inuu iibsado kooxda kubadda cagta ee Manchester United xilli la sheegay inuu ku dhow yahay si buuxa inuu ula wareego kooxda Newcastle United. Mohammed bin Salman ayaa isku diyaariyay inuu iibsado Manchester United 18 bilood ka hor waqtigaas uu kugu talagalay 3.5 bilyan oo geni inuu kula wareego kooxda. haddana milkiiladeeda ay leedahay koox reer Mareykan ah oo hal qoysa kaasoo kasoo wada jeeda kuwaasoo lagu magacaabo reer Glazer. qoyskan reer Mareykan oo sanadkii 2005 ku iibsaday Manchester United lacag dhamays gaaraysa 790 milyan oo geni ayaa waxay heli doonaan faa'iido aad u badan haddii ay ogolaadaan qorshaha cusub ee Mohammed bin Salman uu ku doonayo inuu kula wareego kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyadoo lacag dhan 4 bilyan oo lacag ah uu ku iibsan karo kooxda. sida uu qoray wargeyska Mirror, dhaxal sugaha wadanka Sacuudi waxa uu rumaysan yahay in faa'iido badan oo dhaqaale ka heli doonaan Manchester United haddii uu iibsado, qiimaheeduna sare u kici doono si la mid ah sida ay hadda qoyska reer Glazer lacag waali ah ay uga macaashi doonaan haddii ay xaraashaan kooxdani. dhanka kale Mohammed bin Salman ayaa la wariyay inuu weli kula jiro hawsha inuu ka iibsado kooxda Newcastle United oo wada xaajood la furay mulkiile Michael Ashley waxaana lagu qiimeeyay lacag dhan 340 milyan. Michael Ashley oo lagu leeyahay deymo badan ayaa u jeeda in kooxda kubadda cagta ee Newcastle United uu xaraasho si deymaha lagu leeyahay uu isaga bixiyo. waa hagaag daawadayaal, intaas ayuu guud ahaanba ku egyahay barnaamijkii falanqaynta ciyaaraha anigoo Dalmar Cabdi Diiriye. inta kan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinka tagaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.